بسم الله السلام عليكم مقعي وشيندي سالس وحنا شقيا كمبانيغا مع AG Nutrition AG Nutrition waxaan ku soo biiray sanadkii hore 2019 ayaan ku soo biiray ujeedada aan ugu soo biiray waxay ahayd AG Nutrition waa company transforming people waxaan ugu soo biiray waxaan la soo shaqeyn jiray company fara badan oo kala nooc ah marka company-ga la sharxay waxay sharxay islaan saaxiibanahay oo company kale iskala soo shaqeynay markii ay company-ga igu yeertay ii sheegtay aad baan ugu helay maxaa dhahay company-ga kale aad buu ugu duwan yahay hadii ay tahay qaybta daawada ama qaybta ay tahay marketing plan ujeedadayda waxay ahayd inaan nolol badan iyo dad badan aan noloshooda bedelo aan noloshayda bedelo caafimaad hadayta waa wealth and health hadii caafimaad hadii lacag dhinac tahay ba adduunyada waxa way qof walba wuxuu u socdaa lacag raadis marka network marketing waa the best meesha ugu wanaagsan oo lacag laga sameeyo dhaqaale laga sameeyo marka waxaan jeclaaday in anigana aan ku biiro oo dad badan noloshooda ku bedelo والله كمبانيga marka aan bilaabay waxa ahay qof dhaqaalihiisa hoos hooseeyo hadana waxa ahay qof ma sha Allah lacag fiican kambaniga sameeyo anigana dadaal badan iyo waqti badan baan geliyay marka aad baan dhaqaale fiican ugu sameeyay marka waxaan leeyahay dadka kale walaalahan inay ka qayb qaataan ama ay ka faa'iideystaan كمبانيgan wuxuu leeyahay tababaro uu leeyahay كمبانيga markii aad ku soo biirtid waxa jirta in lagu tababaro sida aad shaqada ku howlgelin lahayd oo lacag ugu soo saar lahayd oo daawooyin ku socodsiin lahayd marka waxaan leenahay tababar baan leenahay qofka markuu oo كمبانيga uu ku soo biiro waxaan u sameeynaa inaan shaqadii iyo tababarooyin aan qabana maalin kasta oo dadka ku shaqo barno marka waxaan leenahay xarunooyin meel kasta adduunka marka nolol soo xariiro insha Allah wala tababar uu jira insha Allah soo dhawaada كمبانيga markii ugu horeysay oo la sharxay hoos baan ka bilaabay waxaan ka bilaabay darajada ugu hooseyso lagu soo galaa basic 9500 ujeedadayda waxay ahayd inaan sii ogaado company-ga sida looga faa'iideysanayo ama marketing plan-kiisa markii dambe waxa dhacday inaan company-ga aad aan u gudo galo oo aad u jeclaado darajada la dhahay elite aan galo kadibna aan shaqo badan qabto because company-gana waxa waaye waa team work hadii aad dad la shaqeynaynin meel dheer ma gaaraysid ama daawooyinka dadka baraynin marka waxaan sameeyay group aan sameeyay groupkayga waxa jira fara badan oo dhaqaale fiican ka sameeya hadda aniga dhaqaaliga alxamdulillah aad baan dhaqaale fiican u sameeyaa marka waxaan sameeyay team oo u badan dhalinyaro oo bish ku xisaabsanayaan $3,000 iyo $4,000 $2,000 marka ujeedadayda meesha aan rabo waan gaaray hadana hore baan u sii socdaa insha Allah الحمد لله horumarka amaanta gaaray horta iguma horeynin company aan ka shaqeeyo company kale aan ka soo shaqeeyay waxa ahay qof network marketing hore ugu soo shaqeeyay oo dhaqaale badan ka soo sameeyay ma ahayn qof cusub oo maanta wax la barayo marka la sheegana aad aan ugu helay waxaan isku dayay inaan company-gi aan maxay u gudo gala oo dadkii dhan team aan sameeyo waxay ugu qaadatay waqti yar inaan team ku sameeyo alxamdulillah dadka hadda company ka shaqeeyo كيدن تيم أن سميه وحيوه قادتي وقت ير إن تيم كسميه الحمد لله ذاك هذا كمبني كشقينا يا ذات بدن وحنون زايد وهاي وأتريتس قبين أما سكرت أما بريشر أما كلية حنونك أدي بيقول بكسودين أدي بداود الورهادية مثل هذا بحيث الدقالة أهان أريق الدقالة وانكسميه جروب تبنقف كحرا وهذا إيه هو سيسا والعكف عنك سميه الواجر تامك الحمد لله أدي كمبانيgan waxaan leena darajooyin hadda waxaan ku jira darajada Resting Star
إن شاء الله سنة كان جود هيسو حلها إن جارو درجة وقدم بيسا درجة هذا الجوار ريستن ستا وحيك سنة درجة وقدم بيسا وأنبسي دابانك سنة إن شاء الله وحاكا لو أدي ورجينا يا تيم بدن oo iga hooseeyo iyaga restin ista iyo director iyo global director ay gaaraan insha Allah company-ga horta wuxuu soo saaraa hal xabo oo daawo uu soo saaraa waxa jirta company kale oo sida camal la soo shaqeyn jiray laakiin company-ga wuxuu aad ugu wanaagsan yahay daawooyin kiisa waa hal daawo oo waxtar leh aad waxtar u leh waxay sameeyeen new technology wala nano technology ama la dhahay isticmaaleen nano technology kaas waxa way 8 daawo oo 8 geed oo kala nooc ah hal meel isku keenan markaas waxay ka soo saareen hal box oo daawo ah daawooyinkeena markii ugu horeysa dad badan oo lagu caawiyo ayaa jirta oo kaliyaha fadhiyeen oo kaliyaha laga dhaqo oo haddana ma sha Allah aad caafimaad u qabo dad pressure lahaayay dad indhaha nuurkooda aan wax ka arkaynin marka daawooyinkeena ma sha Allah aad baa dadka aad ugu bogsoodeen adduunyada waxa la gaaray horumar weyn baa la joogaa horumarka hadda la joogaa waxay tahay wax kasta waxay noqdeen online company-ga waxa way waa online business anoo halkan jooga ayaa cawada register garay kara 100 qof iyo ka badan muqdisho wax jooga ayaa register garay kara soo hadii aad time haynin oo mashquul tahay waxaan ku dhigi karaa part time waa shaqaysan kartaa full time waa shaqaysan kartaa ma aha inaad isku xirtido istiraha aniga shaqadan way aniga horta wuxuu soo saaraa hal xabo oo daawo uu soo saaraa waxa jirta company kale oo sida camal la soo shaqeyn jiray laakiin company-ga wuxuu aad ugu wanaagsan yahay daawooyin kiisa waa hal daawo oo waxtar leh aad waxtar u leh waxay sameeyeen new technology wala nano technology ama la dhahay isticmaaleen nano technology kaas waxa way 8 daawo oo 8 geed oo kala nooc ah hal meel isku keenan markaas waxay ka soo saareen hal box oo daawo ah daawooyinkeena markii ugu horeysa dad badan oo lagu caawiyo ayaa jirta oo kaliyaha fadhiyeen oo kaliyaha laga dhaqo oo haddana ma sha Allah aad caafimaad u qabo dad pressure lahaayay dad indhaha nuurkooda aan wax ka arkaynin marka daawooyinkeena ma sha Allah aad baa dadka aad ugu bogsoodeen adduunyada waxa la gaaray horumar weyn baa la joogaa horumarka hadda la joogaa waxay tahay wax kasta waxay noqdeen online company-ga waxa way waa online business anoo halkan jooga ayaa cawada register garay kara 100 qof iyo ka badan muqdisho wax jooga ayaa register garay kara soo hadii aad time haynin oo mashquul tahay waxaan ku dhigi karaa part time waa shaqaysan kartaa full time waa shaqaysan kartaa ma aha inaad isku xirtido istiraha aniga shaqadan way ugu adag tahay labada saac oo time haysatid telefoonad haysataa dad xanuunsanay waad garani dad lacag u baahan waad garani waad la hadli kartaa shaqadaadana horay baad u wadan kartaa marka kuma xirno in aad 24 hours aad shaqaysid ama telefoonad haysataa dad xanuunsanay waad garani dad lacag u baahan waad garani waad la hadli kartaa shaqadaadana horay baad u wadan kartaa marka kuma xirno in aad 24 hours aad shaqaysid ama maxay ahayd shaqo culus ma aha smart work ayaa la dhahaa company-geena waxa la magaciisa Age Nutrition waxa asaasay 3 nin oo muslimiin ah ayaa asaastay company-geena waxa la asaasay 2019 May baa la asaasay waa company-ga adduunka ugu korida badan oo kor u socdo waa company-geena waxaana keenayo daawadiisa ay wanaagsan tahay marka company-ga waa company aad wanaagsan waxaana laga leeyahay wadanka Ingiriiska company-geena markii aan ku soo biiray qofka ugu horeeyay oo Soomaali aniga baan ahay oo company-ga ka qayb qaatay kadibna company-ga waxa dhacday inuu Muqdisho hadda ka shaqeynayo wajeer Garissa qaxootiga lini xagar dheer wuxuu ka shaqeynayaa Isli meel kasta oo uu joogaa marka waxaan leeyahay company-ga meel badan uu gaaray hadda shaqadeena aad bay u socotaa marka magaalooyin badan baan joognaa muqdisho gaalkacyo boosaaso oo wada joognaa meelaha dhan company-geena wuxuu u fududeeyay dadka inaad haysatid email iyo sharci wuxuu ka ahaado ama ha ahaado kii student kan ama ha ahaado sharci kasta oo hata dhalasho hadii tahay marka company-geena wuxuu noo fududeeyay in shaqadeena lagu gali karo si fudud laguna bilaabi karo lacag aan
كوس وقتك على جوجو جناحسن فرنا هذا ترها وأنا شن كنا دور طبعا كنا دور كوبلاو لكن كم بريجان وحير إيات كوبلاو كرتا ترتيب لو تكوري كرتا لو كن دولار شن كنا دور طبعا كنا دور إيات كحسام تاني كرتا بشي waxaan kula talin lahaa ganacsiga waa ganacsi aad u wanaagsan horreeyo Soomaali aniga baan ahay oo company-ga ka qayb qaatay kadibna company-ga waxa dhacday inuu Muqdisho hadda ka shaqeynayo wajeer Garissa qaxootiga nin xagar dheer wuxuu ka shaqeynayaa Isli meel kasta oo uu joogaa marka waxaan leeyahay company-ga meel badan uu gaaray hadda shaqadeena aad bay u socotaa marka magaalooyin badan baan joognaa Muqdisho gaalkacya boosaaso oo wada joognaa hadda company-geena wuxuu u fududeeyay dadka inaad haysatid email iyo sharci wuxuu ka ahaado ama ha ahaado ki student kan ama ha ahaado sharci kasta oo hata dhalasho hadii tahay marka company-geena wuxuu noo fududeeyay in shaqadeena lagu gali karo si fudud laguna bilaabi karo lacag aan kuus waqtiga aan joogo ganacsan furna hada tiraha waa ina 5 kun oo dollar 10 kun oo dollar ku bilaab laakiin company-geena wax yar ayaad ku bilaabi kartaa tartiib loo kori kartaa 2 kun oo dollar 5 kun oo dollar 10 kun oo dollar ayaad ku xisaabtami kartaa bishii waxaan kula talin lahaa ganacsiga waa ganacsi aad u wanaagsan qof kasta ama hooyo hadaa gabar yar tahay ama hadaa dhalinyarada wad ka shaqeysan kartaa macnaha ma aha in shaqo adag ama ma aha waa hawl aad u yar oo qof kasta oo halka jooga ka shaqeysan karo marka waxaan ku dhiirigelinayaa qof kasta ee gene nutrition waa meesha noloshiisa ka bedel lahay waxa la dhahaa gene nutrition transforming people macnaheedu waxay tahay qof walba oo hooseeyo inuu kor soo aadi karo haduu shaqo diyaar u yahay marka waxaan diilahay shaqadan shaqo adag ma aha dad badan oo xanuunsanaya oo ku caawinaysa dhaqaale ahaan korbad aadaysa marka waxaan leeyahay company-gan gacan fur ku soo dhawaado wada soo dhaweynayna insha Allah company-ga waa networking qof walba oo group-kana waa isla wada shaqeeya ma aha in company-ga marka aad soo gashid lagu sii daynayo marka please waxaan leeyahay soo dhawaado waa la shaqeynaa ee jiil dirsho ku soo dhawaado